kulanti wacan oo wanaagsan qiyaartana daawatay meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixin cusub oo aanu kaga hadli doonno wararka guud ee suuqa kala iibsiga ee naadiga Barcelona. inta aanu guda galin warbixinadeena barnaamijka waxaan daawadayaasheena ugu baaqaynaa in page-ka baarka 252 ay subscribe ka saaraan isla markaana muuqaaladeena ay u shargareeyaan saaxiibada kale. aynu ku bilownay naadiga Paris Saint-Germain ee dalka France ayaa wali Barcelona kula jirta dagaal ka dhan ah saxiixa ciyaaryahanka reer Brazil ee Neymar. kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa si qoto dheer ula socota rabitaanka Neymar Jr ee ku laabashada kooxda Barcelona. sidaas darteed waxay kooxda PSG doonaysaa inay ka hor istaagto ku biirista kooxdiisii hore. agaasimaha kooxda reer France ee Paris Leonardo ayaa qorsheynaya in laacibka reer Brazil ugu soo bandhigo heshiis kordhin gaaraysa ilaa iyo 2025 oo uu sanad ciyaareedkii ku qaadan doono mushaar gaaraya 38 milyan oo dollar. sida uu xog hoose ku helay wariyaha ka faallooda arrimaha suuqa kala iibsiga ee Nicolo Shira, Leonardo ayaa baarka kala dagaalamaya dhanka dhaqaalaha waxaana mushaarka uu soo bandhigi doono Neymar kaga gol leeyahay uusan ku qancin mushaarka ay kooxdiisii hore u soo bandhigi doonto. haddii uu laacibka reer Brazil saxiixo heshiiskan waxaa meesha ka bixi doonta guud ahaan suuragalnimada ay FIFA ugu qasbi karto inuu kooxda Baaqdi Faqansis ka dhaqaaqo maadaama uu haddii 3 sano ka badan heshiis cusub saxiix waayo ay FIFA ku qasbi lahayd inuu isaga tago kooxda Paris Saint-Germain. si kastaba ha ahaatee kooxda Barcelona ayaa awoodeeda xagaagan isugu geyn doonta dib u soo celinta Neymar, balse xaaladaha dhaqaale ee hadda taagan ayaa ka hor istaagi kara haddii kooxda Red Spain dhigeeda ay u gudbiso dalab ay qayb ka yihiin ciyaartoy iyo heshiiska lagu daro. madaxweynaha Inter Milan ayaa diyaar u ah in Barcelona uusan ka iibin ciyaaryahanka reer Argentina ee Lautaro Martinez oo aad loo xirinayo kooxda Barcelona. sababtu waxay tahay Barcelona ma doonayso inay bixiyaan lacagaha lagu burburin karo heshiiska Lautaro Martinez oo Inter doonayso. BBC Sport ayaa qortay kooxda Newcastle United inay doonayso Arturo Vidal oo Barcelona ka tirsan xidiga reer Chile ayaana waqti ku qaadanaya naadiga Barcelona kadib markii uu kaga soo biray naadiga Bayern Munich ee dalka Germany. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain iyo Bayern Munich ayaa dhammaan xiise u qaba qadka dhexe ee xulka Croatia iyo Inter Milan Brozovic sida uu qoray wargeyska Sport. guud ahaan intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenii wararka suuqa aanu kaga hadlaynay. dhageystayaasha ama daawadayaasheena waxaan ugu baaqaynaa in ay subscribe saaraan channelkeena baarka 252 una shargareeyaan warbixinadeena kale ee soo aadan oo ay la socon doonaan haddii ay ka raali noqdo ay u gudbiyaan saaxiibadooda kale.